Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa faray guddiyada doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed inay sidii ugu dhaqsiyaha badan u bilaabaan doorashada xildhibaanada golaha shacabka ayna soo gabagabeeyaan dhamaadka bisha Diseembar 2020-2021. Ra'iisul Wasaaraha xilgaarsiinta oo kulanka fogaan aragga la yeeshay guddiyada doorashooyinka labada heer ayaa sheegay in xukuumadda ay diyaar u tahay fududeynta arrimaha farsamada, amniga, dhaqaalaha ee lagama maarmaanka u ah qabsoomidda doorashooyinka, isagoo guddiyada faray inay dhaqso u soo gudbiyaan qorshe howleedka labada qorshe ayna tagaan goobaha doorashada ay ka dhacayso. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa guddiga xalinta khilaafaadka kula dardaarmay inay si dhow ula socdaan doorashada. Isagoo la hadlaya guddiyada ayuu Ra'iisul Wasaaruhu carabka ku dhuftay inuusan jirin kursi cid gaara loo xirayo ayna lagama maarmaan tahay in tartanka uu noqdo mid furan oo xalaal ah. Wuxuu sidoo kale Ra'iisul Wasaare Rooble ku booriyay guddiyada doorashooyinka in la dhowro qoondada haweenka 30% xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ka soo gelaya. Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay inuu dhowaan booqan doono goobaha doorashooyinka ay ka dhacayaan si uu u korgalo habsami u socodka hanaanka doorashada ee dalka. aad ayaa u mahadsantihiin kasoo qaybgalkiina maanta fursad aad u wanaagsan ayay ii ahayd inaan maanta zoomkan ku wada hadalno. waxaan idinkula dardaarmayaa shaqada wanaagsan oo aad wadaan inaad laba laabtaan. doorashadii way bilaabatay, waxaan rabaa sida ugu dhaqsiyaha badanna inay u soo gabagabowdo December bartamaheeda golaha shacabka uu naga soo gabagaboobo. waxaa idinkula dardaarmayaa oo mar labaad iyo mar saddexaad idinkugu celinaya, waxaan u baahannahay dhammaanteen shacabka Soomaaliyeed inuu idinka sugayaa doorasho xor iyo xalaal ah. kursi cid loo xirayo ma jirto, kursi qof laga celinayo ma jirto. kuraastaas waa inay furan yihiin, ciddaan ku arkana tallaabo sharciyan ka qaadaya. sidoo kale ha hilmaamina maalin kasta Maxamuud Jiisow, Muqdisho waa 30, ha hilmaamina. taas waa idinku adkeynaya. waxaan kaloo idinku adkeynayaa in aad bilowdaan oo ay soo gudbisaan isla cawadaba work plan-ka ama qorshaha iyo kuraasta ugu horeyso oo aad hadda diyaariseen inaad qabataan. waa ugu mahadcelinayaa Somaliland hore u bilowday, haddana ila soo wadaagtay kuraasta ay qabanayaan. sidaas oo kale ayaa idinkana idinka rabaa si lacagta aad u baahan tihiin laydinkugu soo shubo qaybta ka dhiman, qaybta ay haysatiinna laydinkula xisaabtamo oo single treasury account-kana aan ka ogaado. inaad ku noqotiin oo aad tagtiin goobihiina, kuwiina meelaha kala jooga ama Muqdisho ha joogaan, waa inay ku noqdaan goobaha codbixinta ay ka dhacayso ee siidka. waxaan sidoo kale farayaa federaalka oo ah fiid inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay u sameeyaan guddiyadooda ee magaalooyinka ay u qaybiyaan, ay sida dhaqsiyaha uga qayb galaan. sidoo kale waxaan farayaa guddiga xalinta khilaafaadka in ay si dhow ula socdaan goobahaasna ay sida ugu dhaqsiyaha badan u tagaan. sidoo kalena wixii ka bilowda Jimcada ama Sabtiga waxaan diyaariyay inaan aado goobaha ay doorashada ka dhacayso. Maxamuud Jiisow, Muqdisho.